السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقيبتني تضباط اتحانهني طريقة قوشة. قيبتي لحاد وحي إنو مريسي مركي أويلك يرادهاي. وحان قريا إنو إلهي كليهاي. محمدنا رسولك إلهي هاي. نارتنا تهي حق. جنادنا تهي حق. كدب وهذالك ريقايو لنكي حاكمكي أيا يري مركز إمكا أدقو إلهي واد رميسي ويليهو. iyo rasuulkiisa Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee adigu hadda waxaad leedahay awood aad dadka diinta islaamka ugu yeeri karto oo aad ku noqon karto daaci dunida daafaheeda laga yaqaano waxaadna tahay mid ku hubaysan hub aad u xoog badan hubkaas oo xagga Ilaahay ka yimaaday wiilkii yaraa ayaa haddana xaakimkii weydiiyay maxaa ku xiga rumaynta Ilaahay xaakimkii ayaa ku jawaabay Ilaahay oo cibaadada loo kali yeelo xaakimkii ayaa yiri wiilyahow waxaad arki in rumaynta Ilaahay ay kugu xambaarayso daacada Rabbi daacaduna ay kugu xambaarayso in amalka aad suubinayso aad Ilaahay u badhaxtirto ama aad u kali yeesho suuragal maaha inaad ruux adeecdo adiga oo aan hubin inuu awood u leeyahay inuu sameeyo waxa aad ka doonayso waxa aad talada u dhiiban kartaa looyarka marka aad ogaato inuu ku difaaci karo xaqaagana kuu soo dhicin karo sidaa awgeed baad u adeecaysaa marka aad u tagto dhakhtarka ee uu waqtiga qalliinka ku xadido wax kasta oo uu kugu yiraahdana waad u adeecaysaa maxaa yeelay waxaad aaminsan tahay awoodiisa iyo inuu qaban karo hawshan haddaba iimaanku waxa uu ku gaarsiinayaa adeecidda Ilaahay daacaduna waxay ku gaarsiinaysaa ikhlaaska suuragal maahan inaad Ilaahay rumayso rumayn dhammaystiran ilaa ay cibaadadaadu tahay mid u badhaxtiran Ilaahay ama u kali ah Ilaahayna wuxuu yiri ninka Ilaahay la kulankiisa doonayo samee amal wanaagsan oo Ilaahay cibaadadiisa shirki ha galinin wuxuu kaloo Ilaahay yiri wax kale la idin ma amrin bini'aadanow waxa la idin amray inaad Ilaahay cibaadada u badhaxtirtaan amiirkii muuminiinta oo ah Umar bin Khadaabna waxa laga wariyay inuu yiri waxaan maqlay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo leh amal oo dhan waa niyada ruux kastaana wuxuu niyooday buu leeyahay ruuxa hijradiisu tahay Ilaahay iyo rasuulkiisa hijradiisu waa Ilaahay iyo rasuulkiisa laakiin ruuxa hijradiisu ay tahay inuu adduunyo soo helo ama sanaag soo guursado wixii uu soo hijrooday buu leeyahay xadiis kale oo uu nabiga kaleey salaatu wasalaam yiri ayaa waxay tahay Ilaahay ma eega suuradiina iyo xoolihiina laakiin Ilaahay wuxuu eegaa qulubtiina iyo amalkiina haddaba ikhlaasku waka ayuu yiri xaakimkii oo hadalkiisa sii wata ayaa haddana yiri marka aad tahay mid mukhlisa waxaad arki adiga oo ikhlaaska ka dhigtay calaamad oo kale Ilaahayna kuu furo albaabadiisa amal kasta oo aan ikhlaas wadanna wuxuu ka dhigan yahay adiga oo aan qaban oo kale marka aad tahay mid amalkiisu leeyahay ikhlaas waxaa dareemi macaanka cibaadadu leedahay taasina waa ku xirnaanshada Ilaahay kadib wiilkii yaraa oo afkiisii juuqda gabay ayaa yiri sidaan maxaa inta ku sii xiga xaakimkii ayaa ku jawaabay oofinta balanta Ilaahayna wuxuu quraankiisa ku sheegay aayado badan oo ku saabsan oofinta wuxuuna yiri sidaan wa uufu bil ahdi innal ahda kana mas'uula oofiya balanta waa la isweydiin doonaaye wuxuu haddana Ilaahay yiri dadka Ilaahay rumeeyayow oofiya balamaha xadiis uu Abdullah bin Umar bin Aas uu nabiga kaleey salaatu wasalaam ka wariyay ayaa ah sidaan afar arrimood ruuxa laga helo wuxuu noqonayaa munaafiq khaalisa ninka laga helo mid kamid ah calaamadahana waxaa ku sugan calaamad kamid ah calaamadaha munaafiqiinta haddaba maxay yihiin calaamadahan kow waa marka la aamino oo uu khiyaaneeyo labo marka uu sheekaynayo oo uu been sheego saddex marka uu ballan galo oo uu buriyo afar iyo marka uu doodayo oo uu been ku dhaarto kadibna xaakimkii ayaa wiilkii yaraa indhihiisa fiiriyay kadibna ku yiri ka waran haddii uu ruux ballan kula galo oo uu ka soo bixi waayo maxaa dareenta adigu wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay waan caroodaa waliba cara aad u daran xaakimkii ayaa haddana wiilkii yaraa ku yiri ma suuragelaysaa inaad maalin dambe ku kalsoonaato qofkaas wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay maya xaakimkii ayaa haddana wiilkii yaraa ku yiri Ilaahay sareeyana waa sidaas oo kale waxaa la arkaa inaad tahay ruux mu'mina oo mukhlisa laakiin aan oofin ballanta Ilaahay aad la gasho iyo ballanta aad dadka la gashaba oofin la'aanta ballantuna wax kasta waad ku weynaysaa oo ah wixii aan horay u soo sheegnay oo dhan ha noqoto iimaankii daacadii iyo ikhlaaskiiba oofin la'aanta ballantuna waa dambi laakiin keeni mayso inaad ku gaalowdo oofinta la oofiyo ballantuna daacada ayay ka mid tahay daacaduna iimaanka ayay ka mid tahay sida aad aragto wiilyahow waxa aan soo sheegnay oo dhanna waa aasaaska dariiqa sarreynta dadku sababta ayay la yimaadaan waxayna iloobaan kii sababta lahaa taasoo halaa ku ridda qofka
laakiin marka aad la timaado sababta adiga oo Ilaahay talada saaranaya, taasi waa mid aad ku guulaysan karto. Markaas ayuu xaakimkii wiilkii yaraa fiiriyay kadibna ku yiri, ilaa imika maxaad baratay wiilihow? Kadib wiilkii yaraa ayaa xaakimkii u sheegay wixii uu baray oo dhan, ha noqoto iimaanka, ha noqoto daacadii, ha noqoto ikhlaaskii iyo oofinta ballanta. Kadib xaakimkii ayaa wiilkii yaraa fiiriyay isagoo dhoola cadaynaya, kuna yiri, wiilihow, markaan wax badan ayaad baratay. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, adiga ayaan kaa bartay waxaas oo dhan. Xaakimkii ayaa ugu jawaabay, maya, kada, anigu waxaan ahay oo keliya sabab ka mida sababihii aad guusha ku gaaraysay. Ilaahay baana ii kaa sakhiray si aan kuu caawiyo. Adiguna sidoo kale dad fara badan baad caawin doontaa. Wiilkii yaraa ayaa yiri, ballan ayaan kaa qaadayaa xaakimow inaan samayn doono sidaada oo kale. Xaakimkii ayaa ku jawaabay, ballan ha qaadin haddii aadan karayn inaad oofiso wiilyahow. Ballantana oofi wakhtigeeda saxda ah. Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, kaasi ma qodobkii u dambeeyeyba? Xaakimkii ayaa ku jawaabay asagoo dhoola cadaynaya, maya, maya, waxaa haray arrimo kale, sida Ilaahay oo aad talada saarato. Wiilkii yaraa ayaa yiri, maxay tahay tala saarashada Ilaahay? Xaakimkii ayaa ku jawaabay, waxaa waajiba inaad Ilaahay talada saarato adiga oo asbaabtana la imaanayo. Ilaahayna Qur'aankiisa wuxuu ku yiri, haddii aad tala goosato Ilaahay talada saaro, Ilaahay wuu jecel yahay kuwa talada saarta. Taas macnaheedu waxaa waaye in markii aad go'aan ka qaadato aad Ilaahay talada saarato kadibna aad ku dhaqaaqdo. Si aad haddaba go'aan u qaadato oo aad Ilaahayna talada u saarato, waa inaad niyootaa. Haddaba wiilyahow, waxaa muhiima inaad taqaanid macnaha ay niyaddu ku fadhido. Niyaddu waa meesha ay afkaartaadu ka dhalato. Niyadduna waa tan keenta damiirka. Damiirkuna waa kan keena dareenka iyo habdhaqanka. Kadib ayay caalamka dibaddiisa u soo baxdaa afkaartaas. Maxaa yeelay Ilaahay wuxuu eegayaa niyadda iyo waxa ku jira quluubta. Sidaa daraaddeed waxaa waajiba in camal kasta oo aad samaynayso waa inaad kow niyootaa, Ilaahayna talada saarato, oo aad niyooto iimaan buuxa, oo aad niyooto daacada Rabbi, oo aad niyooto qabashada asbaabta, kadibna aad bilowdo dariiqa guusha. Niyadda ayaana shay walba ka horraysa wiilyahow. Xaakimkii ayaana wiilkii yaraa fiiriyay oona ku yiri, ma niyootay haddaba wiilyahow? Wiilkii yaraa ayaa ku jawaabay, haa, waa niyooday. Haddaba halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybteennii 7 ee tixanaheennii dariiqa guusha. Waxaan sugnaaba waa qaybta 8 oo midaan ka xiiso badan. Yuusan ku dhaafin, fadlan nala soco oo ka mid noqo asxaabtayada. Fiidiyowgana share iyo like iskugu dar, channelkana subscribe garee. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.